السلام عليكم ورحمة الله magacayga waxa la ifraax Saciid Xasan waxaan jeclahay maanta inaan idin la wadaago sheekadayda aniga ganacsi aan ku jiro goormaan soo galay maxaan u soo galay xageesa maanta wax ii marayaan waxaan idin la wadaagayaa alaabtan iibino iyo waxyaabaha ay taraan ugu dambeyn waxaan ka hadlayaa saa ujeedaan gurigayga dhex fadhiya sidaas oo kale adoo gurigaaga dhex fadhiya ilaa iyo 200 oo wadan sidee oo ganacsan kartaa insha Allah sheekadayda haddaan ku bilaabo aniga waxaan ku dhashay wadanka hooyo markay dagaalada dhaceen waxaynu ahayn dadkii Kenya soo galay Nairobi Kenya joognay dhowr sano kadibna waxaynu soo galnay Canada waa meesha aan ku barbaaray alxamdulillah waa meesha aan iskuulkii dhexe kii sare ilaa jaamacadana uga baxay kadib waxaan bartay marka jaamacadda waxay dhahaan economics dhaqaalaha minorkeygana wuxuu ahaa business marka weligii hami business waa lahaa subxaanallah maxaa dhacay markii aan shaqo fiican aan dawladda aan ka helay markaan jaamacadda ka baxay shaqo fiican aan helay waxa isweydiiyay alla ilaahay maanta yaa gacan qaban kartaa waxaas waxa waaye markasta ani waxaan aaminsanahay ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ku siiyo fursad ma aha inuu dadka kale u waayo adaa lagu fiirinayaa subxaanallah marka waxaan go'aansaday in aan communitygayga ku soo celiyo wuxuu ilaahay i siiyey koo waxaan bilaabay waxa ay dhahaan mentorship la taliye inaan la taliyo dhalinyarada ku jirta iskuulka sare aan ku xiro kuwa jaamacadda college-ka kuwa jaamacadda college-kana aan ku xiro kuwa anigoo kala shaqaalaha sidii generation by generation kale ay usoo kobciso maxaan kaloo bilaabay inaan si gaara ula shaqeeyo haweenkeena iyo gabdhaheena weligay waxaan aaminsanaa haweenkeena iyo gabdhaheena inay meel kasta ka muuqdaan hadday noqoto dhanka bulshada dhanka ganacsiga iyo dhanka siyaasadda ilaahay subxaana wataala wuxuu qadaray muddo 10 sano ah anigoo 9 to 5 shaqaynaayo communitygeena maalin kasta 2 saac 3 saac 4 saac gelinaayo casharka ugu weyn aan barto muxuu yahay qofka bini'aadamka markuu wax muddo wado waxa fiican inuu xisaabtamo casharka ugu weyn aan barto wuxuu noqday haddii aan rabo inaan dhalay isbeddel dhab ah wax la taaban karo inaan dhaqaale abuuro waayo maanta maxaynu ogsoonahay adduunkaasoo dhan wuxuu ku salaysan yahay waa dhaqaale si kasta u niyad wanaagsantaa si kasta u dadaalaysa haddaadan dhaqaale gacanta ku haynin isbeddelkaa dhalinaysa aad iyo aad u yaryahay haye su-aasha marka waxay noqoto talow xagee wax ka bilaabo sababta ay tahay yes jaamacada uga bax buug waan ka akhriyay dhaqaale laakiin weligay ma sameynin ilaahay subxana wataala wuxuu qadaray in aan maalmaha ka mid ah aan soo galay dukaan iska leedahay habar Soomaaliyeed oo la dhaho habar Sahra Saciid habar Sahro waxaan aniga ka mid ahaa macaamiisheeda soo uga mid ahaana waxa waaye markasta aynu leenahay kulan ama ha noqoto kulanka dhalinyarada ama ha noqoto kulanka haweenka ama ha noqoto kulanka oo xuskeena afkeena hooyo wax kasta uu communitygeena qabanayo mar kasta waxaan jeclaa in aan marada aan xiranay ka iibsado gabar Soomaaliyeed hooyo Soomaaliyeed soo habar Sahar marka u taga dabcan way soo dhaweysay macaamiisheedaan ahaa waxay tiri marka marada ka iibsado waxay ku tiri habar yaray ma ogtaa waxa leeyahay ganacsi kale waaw aniga dhegtan taag waay ganacsi intaas uga dhex guuxay meelan ka bilaaban baan aqoonin waxa habar ganacsi waa baraadinaya muxuu yahay waxay tir habar waa mid caalami ah waa mid online gurigaaga adoo jooga adduunka dacaladiisa uga shaqaysanaysaa maxaad iibisaan waxay tir waa caafimaadka waxa daryeelka korka rag iyo dumarba isticmaalaan oo dabiici natural ah iyo wax allaale waxa faashika habar Sahar marka wuxuu ogeed aniga faashinka iyo xaragada soo u jeclahay waxay tahay habar marada maanta iibsata ma aragta ha waxaad u xiran lahayd ama faraanti ama saacad ama boorso ama kabo haddii aad ka iibsato kana leedahay ka waran subxaanallah sidii ay noqoto hadda saladana u jeedaan aan qabo waa dukaankayga okay walaacada waa sad jijimaheedana waa kan okay faraantigeedana waa kan midkan kalena waa kan okay jijimahana waan qabaa ما شاء الله مرة وان كهذا دونا فاشن كينا وحياة بسيط وكلا بحط وحكى هذا درن فاشن كينا إننا وحين وكهلنا فري فالتكهل لو يري كان اللي بيسوق نقالنا كسماء سبحان الله مركز توح عندها وحاجة وحلو قدر أديك waxay habar wax fiican aan sheegtay haddaan rabo aniga inaan ka ganacsado maxaa xalla waxay tir habar goorma leedahay firaaqo schedule-kayga fiiriye 2 asbuuc kadib ba ugu horeysay firaaqadaydii meel maqaaxi igu ballamay habar Sahra meeshii markaan tagay waxay soo kaxsatay habar Sahra gabar Canadian oo la dhaho Stephanie gabadhaas waxay gabadhii habar Sahra ganacsigu bandhigtay labadoodii markay ila fariisteen saddex waxay ii sheegeen isla markaa aniga go'aankii ku gaaray company-ga wuxuu bilaabay dhahay 2005 waxay ka bilaabay magaalada Ottawa Canada oo ah magaalada aniga aan ku barbaaray ninka CEO-geena la dhaho Ramin basementigiisu ka bilaabaa lagu leeyahay 2005 labo maanta waxaynu joognaa ku leeyahay ilaa iyo 200 oo wadan waaw kan saddexaad aad soo jeedo muxuu noqday shanteena suuq ugu waaweyn ayaa ku jiray Kenya iyo Rwanda Kenya saidin sheegay intaynu Canada nimaan waa meeshaynu soo marnay soo dabcan maxay istusay subxaanallah ganacsi Kenya loo ganacsanayo dunida meel kasta inaa gaarsiin karo I saw the vision sawirka weyn oo u halgamayo asaasaha company-geena dhan waan arkay adiga habeen gurigan imaada anigoo qanacs alxamdulillah oo dhahay alla ilaahay wixii aad raadinaysa maanta gacanta ku haysaa wixii ugu horeeyay sameeyay waxaad waan istiqaaraystay
ilaahi subxaana wa tacaala baan isku xiray kadib qofkii ugu horreeyay aan la tastayeed hooyaday macaan hooyo markaa u sheegay waxay tiri hooyo waan kugu duceyni isku tuur waayahay waan galay mar dhowaan ka hadli doonaa markaan ka hadlaya dhanka ganacsiga intiina dareynaysa inay sideedoo kale oo ganacsato waxaan insha allah baan ka hadli doonaa siyaabaha lagu soo galo laakiin nooca ugu fiican oo tiimkayga hadda 95% ay kusoo galaan waa nooc la dhaho lifestyle advisor noocaas markaa kusoo gashay dabcan alaabtaa lagu soo diraya mar rawensu doono laakiin markaas waxa soo baxay ee adduun weynihii dhan ay ka hadlaayeen maxay ahayd goojadan yarta hadda intiinaan daawanayso waxaa laga yaabaa inaad ama maqasheen ama aragteen ama isticmaashaan fountain of life goojadan waxay soo baxday 2018 bishii 2 oo February dadka maxay sheegayeen intaasoo faa'iido ah oo la kala guri karin ani marka waxaan go'aansaday in aan marka hore tijaabiyo sababta ay tahay maadaama aan ahay qof community-ga 10 sano la shaqeynayso waxaan ahay qof fara ka yaalaan ama waji ka yaalaan dadka maxay ugu yaqaanaan wanaag horumar daacad ma rabin marka dadka inaa u tago dhow hebel iyo heblaayo alaabtan iibsada sidan iyo sidan ka helaysaan maanta tiimkayga maxaan ku dhahaa waxaad tihiin dad aad iyo aad u nasiib wanaagsan sababta maxay tahay maanta waxa waa alaabteena waa markhaatimo doonto waxay u tahay adduunka meel kasta ajnabi iyo Soomaali iyo Muslim qof kasta isticmaalay Soomaalida kaliya kumaan kun qof oo isticmaashay oo markhaati ah oo ku dhahayso faa'iidada ka helna haysana ani laakiin ma haysan waxa ira dadka intaada ku dhaxdhicin bal waxaan ka warkeen hooyadeena waxay go'aansatay in ay ila bilowdo waayahay ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu qadaray 3 cisho markay wada hooyo inay tiri hooyo sharoobadii waxaan ka dareemay nafis aniga yaab hooyo maxaa ka wadaa hooyaday muddo 15 sano waxay qabtay waxa ay dhahaan arthritis lugu xanuun kor xanuun maxaa dhibi jiray salaada istaaga badan socodka badan jiraan jirta waxay hooyo say ku dareentay inay nafs ka dareento waxay tiri hooyo jiraan jirta guriga soo magarnays gurigeena markii ilaahay amarkii meesha barsadii meesha qadad waxa u dhex jiraan jir yar waxay tiri hooyo Teresa waan sii socdaa waa soo socdaa waxa moodaa saantaydii inay fududahay subxaanallah waxay hooyo khayr baa sheegtay bal sii wad ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu qadaray 3 asbuuc kadib maalintii hooyada nafis baan ka dareemay waxaan soo maray barsadeena hooyo salaad ku jirto intiina taqaan waa taqaan qofka markii uu kor xanuun uu qabo salaada ka soo kaco rukuucda aadayo sujuudda ma dhigan kara jilbaha ama lowyaha hooyo waxay dhigan jirtay marka hore calaacalaha sida ilmaha markay gugurinayaan tartiib u imaan jirtay tartiib u kici jirtay khaatiyaan qof taagan waa ujeeda ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu igu Soomaalintaas hooyo oo salaadeed u tukanayso hooyadii hore aan aqaanay subxaanallah waa waxa runtii igu dhiirigeliyay inaan dadka walaalahay la wadaago aniga marka maadaama aniga hooyo isku mar aan bilawnay goorma ahayd markaan wax ka dareemay maxaasa ka dareemay aniga faa'iidada ugu horeysa waxaan dareemay hal asbuuc markaan waday saa ku dareemana waxa waaye saa idin sheegay shaqada 9 to 5 markaan ka soo baxo guriga ma aadi jirin waxaan sameyn jiray volunteerki community-gayga haye guriga waxaan ka bixi jiray subaxii 1 saac 7 am habeenkii maxaa soo hoyan jiray 2 saac 3 saac 4 saac dabcan maxaa imaada anigoo aad iyo aad u daalan cidna ma jeclaan jirnaa la hadlo salaadeeda cisho haddaan tukadaan nasiib lahaan jiray ilaahay subxaanahu wa ta'aala muxuu qadaray habeenkaas aniga oo qof fariin u qoraayo taleefankayga fiiri saacada waxay ahayd 11 bar habeenimo aan soo jeeday maxaa kaaga dara maskaxdeedu way degan tahay qofaa yacni ka qasneen oo kale waa qoftaydii teeriya maanta ordayso shaqeynaysa markaasaa ira ogow alleeleh dadka waxay sheegayaan waxbaa ka jiro waxyaabaha ugu horeysa dadka hadlaayeen waxa waa inay ka dareemeen energy boost haye maalmaha ka dambaysa fircoonideedu way sii badanay maalmaha ka dambayso ani marka waxa ahay dadka ay dhahaan curious dadka jecel wax kasta inay ka salgaaraan waxa ay talo fountain of life systemkaaga maxay ku sameynaysaa intaano energy iyo intaano fircooninte keentay maalinta waxaan iska qaaday dhiigayga muxuu soo saaray ironkaygii inuu kor u kacay subxaanallah maxaa kale dadka waxaa ahaan jiray caloosha adag maantana waxbaa cunayaa haddana caloosha way taaganta caloosha ii socota alxamdulilah saameynta ugu weyn aan ugu yeelata maxaa waaye waxaan qabi jiray ilaa iyo waagaan yaraa samboor xasaasiyad kaniini baa qaadan jiray kaniinigaas marka awalka hore bilaadanaa tahay marmar qaarkood markaan iloobo maalintaas jawigayga waxaa ka khaldanaan jiray waxaa arkay goojada markaa dhowr asbuuc waday saaka kaniiniga ma qaadan haddana okay baa ahay subxaanallah maxaan go'aansaday marka haddii iyada tahay inaan bal hubiyo maxaa marka bilaabay kaniinigii maalinna u gooye maalin aan qaato goojadana aan toos u wado ilaa iyo gibigiis aan ka go'ay alxamdulilah okay maxaa kale marka aniga intaasoo faa'iido ka arkay hooyadii macaana arkay nolosheeda 3 asbuuc gudahooda isku bedeshay waxaa go'aansaday in aan
dadkii u soo bandhigo sababtoo maanta waxaan hayaa caddeyntii subxaan allah waxaan sameeyey marka launch party waxa ay dhahaan waan daahfura ganacsigaygii 30 qof oo intaas 10 sano ilaahay darti community oo la shaqeynayay dadaan soo xushay imaadeen meeshii aan ku duceysanay sambuus iyo xalwad ku cunna alxamdulilah su'aashu waxa maxay qabsoomay maalinta aan toos u soo bandhigay ganacsigayga waxay ahayd abriil 7deedii 2018 hadduu ilaahay idmo abriisha sanadkan 2021 baa waxa ii buuxsamaysaa 3 sano inta company-gan ku jiray allahu akbar maxaa ii qabsoomay tiimkayga maanta 1500 inuu dhaafay alxamdulilah inaynu kala joogno 30 wadan meel kasta Africa iyo meel kasta adduunka Carabaha North America Europe dhinac walba inuu ka joogno alxamdulilah sidoo kale aniga waxa idin sheegay markaan ganacsigan bilaabay inaan shaqaale ahaa ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadaray 7 bilood ka hor si toos ah inaan uga fariisto ganacsi shaqadii aan hadeertaan waxa kaliya aan sameeyay ay tahay ganacsigayga hadda waqtigaana cajiradaan duubayo waxaan soo ahay safar muddo 3 bilood ah haddii aan maanta ahay shaqaale ma dhici karto wax kasta kugu dhacaan emergency kasta kugu dhacaan in 3 bilood cid ku fasaxaysa habeeraatay male oo hadhowtana shaqadaada u soo noqonaysay intaas marka waxa waaye tusaalaha ugu yar oo ganacsigeena runtii isbedelka qofka ku dhalan kara subxaanallah hadda waxaynu u gudagalaynaa marka alaabta aynu iibino iyo sidii ay uga duwan tahay wax allaale wax banaanaas laga helo hal hees waxa jira oo dhaho CEO-geena Ramin oo ah haddii waxani if it exists ku leeyahay make it better haddii waxa jiraan already ee marketka yaalaan wixii wax ka fiican keen if it doesn't exist create it haddaysan jirin laakiin adiga soo saarihi noqo soo annaga waxa banaanka yaalo oo suuqyaasha yaalo hab yaraatee magadno waa wax unique ah waana wax company-geena company aan ahayn aadan ka heli karin adduun weynaha meel kasta okay maxay u kala baxaan waxaasi waxaan rabaa inaan ku bilaabo goojadeena hadeertaan aan ka hadlay oo la dhaho fountain of life okay goojadeena waa tanaa okay goojadeenan waxa waaye waxa laga sameeyay geed ku yaala Norwegian spruce tree badankii waxa laga yaabaa inaad ka dharagsan tihiin okay geedkaas laga sameeyay waxa lagu leeyahay 3 wuxuu geedaha kale uga sareeyaa waxa waaye wax allaale waxa antioxidant waaye wasaqdu saara difaacu dhisaa 2 waa anti inflammatory bararka iyo waxa soo dhan uu ka ilaalinaya 3na maxaa waaye waa antimicrobial bacteria xun soo korkaaga markii wasaqda laga saaray difaaciisana la dhisay in allaale intii bacteria xun laga saaray maxaa yiraanaya fursadii uu ku gali lahaa cudur waa waxay dadka badankood ay faa'iido uga helaan sidee u qaataa waa tana maalintii 10 dhibic bay dadku kula talinaa miisaankaaga ku xiran tahay haddii miisaankaaga uu 50 kiilo ka yar yahay 5 dhibic ku bilaabay hadduu 50 kiilo ka badan yahay ilaa 100 uu yahay 10 dhibic okay hadda aniga waqtigaan idin la hadlayo waxaan qaataa 30 dhibic waa ka badsan kartaa systemkayga la qabsaday maadaama aan safarna ahay waxaan u qaataa 3 joor maalintii laakiin adiga marka kuugu horeysa maalintii hal mar un baa qaadanaysa awlaad waxaan kula taliyaa markay quraacdaan kadib adoo gaajeysan ha qaadanin dad baa si ku noqda markay ay ku gaajeysan ay qaataan dad waxay ku leeyahay anoo gaajeysan qaata caada ahay dadka kala ah so it's better to be safe than sorry markasta dhaha qofkii inuu safe noqdaa fiican markasta uu soo hadhowti sorry noqon marka cuntid kadib subaxii marka quraacataada kula taliyaa waa ka 10 dhibcood intaas maalinta qaadanaysa bismillah arabka hoostiis marka waxay leedahay qaraar yara qofka marka ugu horeysa waxaan kula talinaa juice ama bees agdhig dabcan ani maadaama la qabsaday waa caadi sidoo kale arabka hoostiis ugu shub maxaynu dhahnaa waxa waaye maadaama arabka uu ku yaalaan xididada korkaaga dhan saameeyo waxa lagu leeyahay qofka markuu arabka hoostiis ku qaato 5 daqiiqo ku qaadanaysa inuu korkiisa dhan galo dabcan intaan qaado 10kaas juice waa ku dari karaa waa qaadan karaa laakiin waqti qaadana intuu systemka galaayo so degdeg say systemkaaga u gasho u sameynaa sidoo kale qaraarka inuu ka yaraado markii arabka hoostiis laga qaato xoogaa qaraarkii badnaa uu yaraanayo okay so taasi waa taasa maxaa kale oon iibinaa oo runtii waxa la dhaho safe home revolution badbaadinta gurigaaga ee ugu horeysa goojadan waxyaabaha kala iibina maxaa kamid ah kareemada oo daryeelka korka kareemadan rag badan markaynu u sheegno waxay dhahaan waxa waaye waa alaabtii haweenka iyo hebelow may rag iyo dumarba way qaataan okay maxay u kala baxaan 5 nooc midkan waa midka la dhaho
cleanserka waa midka wejiga lagu dhaqdo aniga shakhsiyan waa midka ugu jeclahay maba noolaan karo haddaysan ku dhaqan subxaan ayaan intuu iga dhamaaday ilaaha ogaa dhibkii qabsaday okay so kareenkan face washkan maxaa ugu jeclaa waxa waaye markii ma arkin oo saabuun iyo ku dhaqato wejigaaga muxuu qofka dareemaa dry qaleel kan laakiin kareena ku jiro maxaa kale wax allaale waxa wejigaaga saaran ama ha noqoto cirid ama didid ama makeup wax allaale sida habeenka dhalato kale u dhaqaaya subxaanallah head to toe meel kastuu kaa dhaqaaya okay so kaasi waa kaasa waa kan wejiga lagu dhaqdo okay maxaa kale waxaynu haysanaa midkan oo ah day cream waa maalintii so kaas markaa weji ku dhaqdid aa kan marsanaysaa midkan mar labaad aad iyo aad waxa ugu jeclaa waxaa ka mid ah waxaan tusinaa hadda markaa halkan ku shubo okay markaa ku shubtid waa kaasa in yara u baahanta wax badan uma baahnid markaasaan dhaho waxaad arkaysaa dhalaal fara badan haddana subag badan ma laha waxyaabahaas ani ku jeclaa ujeedaa waa dhalaalayaan oo dhan subagna ma laha ilaahay markii okay so kanna waa kan maalintii aad marsanaysaa hadhowta haddaa makeup waa kaas haddii kalena waa ku baxaysaa okay so taasi waa taasaa maxaa kaloonu haynaa habeenkii okay because waxa waaye habeenkiina waa u baahan tahay inaa wax marsatid midkan saa u jeedaan kalarkiisu wuu ka duwan yahay labada kale waxaas maxaa waaye waxaa ku jira wax aynu dhahno microsilver waxa bacteriyada laaya okay alaab kale oo laga sameeyey microsilverkana way soo socotaa oo waxaa ka dareemi kartaa kalarkiisa okay midkaana waa midka habeenkii aa marsanaysaa dadka isticmaala kareemadeynana waa midkay ugu jecel yihiin waxaasna waxaa waaye wuxuu la dagaalaa wax allaale waxa heeraaraha nabraha xajiinta kala jaanka qofka markuu banaanka aado maalintii oo dhan maxaa soo qaadanaysaa in allaale intii wasakh ahayd hadhowta maxaa samaynaysaa barkintii aa kula seexanaysaa barkintii maalintii dambe haddana waa bixi waa soo noqone soo barkintaada waa naf iyo bacteria waa waxa loo dhaho mar kasta harqada barkinta hala bedelo waxaas waxaa bacteriada banaanka la timaaday kula fuulaysaa so midkaan marka muxuu sameynayaa wuxuu u diidayaa barkintaadii hal wasakha inay gaarto markaa marsatid okay kanna waa kan habeenkii maxaa kale midkaan runtii aad iyo aad loo jeceliya midkaan waxaa la dhahaa under eye serum indhaha hoostooda waa kan sida loo isticmaalo okay sida loo isticmaalo waa kana saasaa dhehaysaa okay isagana aadaa loo jeceliya wuxuu la dagaalayaa duuduubka ugu horeeya madmadowga heeraaraha waxaasoo dhan qofka qaarkood markuu daalan yahay waa aragtay inay dhib ka muuqato rafaad dadka allergy qaba waxay doonto ha noqoto dadka duuduubka iyo da'da la dagaalay waay waxani waxa waa anti aging okay kana waa kaas aad iyo aad loo jeceliyaa isagana okay kareemada maxaa ugu dambeeyo midkan waa midka dibnaha la mariyo dibnaha badankeen waxaan u maleynaa inaysan u baahnayn in la dhaqaalayo ama la take care garayo way u baahan yihiin sababta ay tahay mar kastaa banaanka u baxdid dabeesha kusoo dhacaysa maalmaha ka dambaysa ma aragteen dad mar kasta afkooda iska qalalan yahay dad jeexjeexan yahay duuduubka wax kasta okay kana waa kana hadda aniga ima marsana soo hortiina ku marsanaya fartaana usually ana kula talinaa kareemadan oo dhan fartaan markaas waa farta ugu jilicsan okay saasaa dhehaysaa in yara u baahan tahay wax badan uma baahnin okay intaas yartaa hadda ma jeedaa say yihiin iyo markaa marsado si u kala duwanaanaya adaa arki doono okay maxaa uga jeedaa dhalaal yes dalaalkaasuu ku yeelayaa sidoo kale waxay leedahay marka ugu horeysa hah yara hahdaasna waxa waaye shaqada isla markii shaqay galaysa ani hadda waa la qabsada hah iyo waxna ma dareemayo laakiin taas waa saasa u marinaysaa maalin kasta ama ha kuu marsanaadaan lipstick ama yeesa kuu marsanaanin afkaaga iyo adiga qaleel waa isdeynaysaan okay kareemadan marka ay soo baxeen haddaan in yar dib inkugu noqdo marka ay soo baxeen 2017 maarsay soo baxeen hadduu ilaahay idmo mar dhow sanadkan adiga wax yar kadib waxay galayaan 4 sano okay 4 sano galayaan 4 sano markay soo baxday ninka company-gan iskale wuxuu sameeyay waxay dhahan competition tartan qof kasta waxa la yiri 30 cisho isticmaal hadhowtana waxa iska qaadaa before iyo after ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray qof kasta madow iyo cadaan rag dumar yar iyo weyn qof kasta inuu isbedelay meel kasta dadka dunida joogaan isbedeleen ma aha sida ma arkano waxyaabaha chemicalka qofkii kala jaan noqonayo u jeedo qofkii kala raan lahayn ka soo dhacmay midabkaaga hore hadaa fiiris waaga yare sawiradaada iyo maanta isku midab ma tihid maxaa dhacay midabkaagi
banaankii iyo maalin ka dambayso noloshii fakarkii stresskii adoo dhan waa isii bedelaysaa maalin ka dambayso midabkaaga quruxsanaa waagaa yareed uu soo celinaya haye maxaa dhacay marka wuxuu u tagay horta haddaan ka dabageeyo tartankaas yaa raaya idinla tahay dadka markasta waa weydiiyaa nin rag aha raaye yes nin Canadiana oo 60 sano jiro oo ah farmer okay nin beeraley ah waaye ninkaas dadkii markay arkeen uu waday alaabtan bil ee arkeen lahay ninkan intee uu jiraa idinla tahay qof kasta wuxuu ku dhaartay inuusan kontonka weyneen 62 sano una jiraa subhanallah waa waxay hal heeskeena u tahay give us 5 minutes we will turn the clock back 5 years 5 sano nasi hadhootana waxaan ka wadaa 5 daqiiqo nasi waxaan dib u celinaa da'daadii 5 sano subhanallah teamkeena gabdho ku jiro oo dhahaan 5 sano iska daaya 10 sano dib noo celisa anaga markay qaateen subhanallah waana waxa ninkaas ku raayay tartankii 10 sano ka yaraaday dadkii waxay ku sheegeen markuu isticmaalay subhanallah soo kareemadeena intaasaan uga bixinaa hadartaan maxaan ka dabageynayaa shaambadeena iyo doobi shaambadan waxaynu haysanaa mid ragga ah iyo mid dumarka ah okay midda dumarka haddaan ku hormaro okay midda dumarka waa midda ugu dambaysa hadda way soo baxday awalka hore tan ragga haysan midda dumarka ah waxa waaye waa labadan kana waa lagu dhaqdaa madaxa korkaagana waa lagu dhaqdaa okay waa 2 in 1 saabuun uma baahnid kana waa conditionerki doobi shaambada okay so labadan hadaa fiiriso halkan maxaa ku qoran waxyaabaha ay ka samaysan tahay ko maxaa ka samaysan geedkii Norwegian spruce tree oo laga sameeyay goojadeena Fountain of Life geedkii aad iyo aad u nafaqo badnaa kana maxaa halkan ku qoran biotin waxa waaye waxa saacideeya proteinka ama nafaqada saacideyso timahaaga inay kobcaan okay all right so intaasoo dhan marka maxay ku sameynaysaa waxa kale oo laga saaray ku leeyihiin waxa lagu daray aloe vera ayadana dad badan way isticmaalaan saliid laga sameeyo aloe vera si timaha ugu baxaan intaba inaga inoo hayno maasha Allah aloe veradana waa taasa waa sainkaas so intaasoo dhan marka isku darsatay aniga hadda muddo yar ba isticmaalaya halkii mar ugu horeysa aan dareemay timahayga dhan kala daateen subhanallah waxa kaaga dana carafta waxa lagu dara caraf yara oo natural oo dabiici ah waxa loo soo saarana waxa way waagi hore dadku waxay isticmaali jireen goojadeena ay ku darsan jireen shaambadooda laakiin shaambadaas ay ku darsanayeen maxaa ku jira intaasoo chemical mid waxaan soo saarnay hal chemical lahayn waxa safe home lagu bixiyo waaye alaabteena oo dhan badbaadada gurigaaga okay waa tana shaambadi iyo doobi shaambadi haddaadan weli isticmaalin qofkii video aan kusoo diray waxaa leedahay iga dabageyso u dhaqsaha badan timaheena waa waxyaabaha ugu muhiimsan markii laga soo gudbo wejigeena okay all right tan raggana waa kana so wiilasheena daawanayo sadhayo waxaan alaabta haweenka oo dhan waa tana tii raggana okay tii ragga midana sidoo kale aad iyo aad caraf u tahay waagi hore ayada isticmaali jireen intay tan haweenka soo bixin tan haweenka haddana loo keenay soo dabcan tan haweenka u wareegay laakiin rag iyo dumar way isticmaali karaan laakiin ma formeena ku qoran ayadana saa u jeedaan maxaa waaye waxa laga sameeyay geedkiya ku jiro okay Norwegian spruce tree oo runtii aad iyo aad geed u nafaqo badan ah kana waa kii doobi shaambade saa u jeedaan doobi shaambada way ka yartaa because ragga timahooda ma badna okay tan waa tan soo wiilasheena daawanaayo adinkana waxaa leedihiin hal iga dabageeyo insha Allah maxaa kaloo safe home revolution keena kamid ah daawadan adayga haday waxa idin sheegay kareenkan wax la kala inuu soo bixi doono waxa ku jiro wixii kan ku jiro oo ah microsilver oo bacteria dilo daawadan adiga maxay uga duwan tahay daawooyinka adiga dunida yaalaan wax weyn uga duwan tahay waxa laga saaray maadada la yiraahdo fluoride haddaadan ogeyn dhibaatooyinka ay leedahay fadlan google gal adaa arki doono intaasoo dhibaato ay leedahay fluoride-ki aynu ka saarnay markii laga saaray maxaa lagu bedelay dadaa waxay ku dhahayaan oo aniga waa isticmaalaa midaa fluoride lahayn maxaa lagu bedela waa su'aasha daawooyinka cadiga inuu isticmaalno waxa fluoride-ka lagu daro wax kale maaha waxay ku leeyihiin waxay dilaysaa bacteria-da urkana way dilay laakiin dhibkay ku geysanaysaa ka badan annaga maxaynu ku bedelnay microsilver bacteria-da dilaayo urkina dilaayo walaacada maxay haysataa long lasting protection waagi hore aniga markaan daawooyinka cadiga kala isticmaali jiray 3 jeer cadayn jiray maalintii subaxii qadadii because marka shaqada ka soo baxo guriga kama aadi jirin waa aniga sameyn jiray volunteerki iyo habeenkii hadda subaxii saa u cadaysada habeenkii waxa arkaa waa 11 waa 12 wili fresh and dreamaya waa long lasting maxay kala haysataa ilkaha way cadaysaa ani waagan yaraa waxa xiran jiray waxay dhahan braces and biraha
biri markaa iska furay iligayga mid ka mid ah oo damage gaaray marka waxaan damcaynaa soo caddeeyo nin dentistigayga ahoo nin muslim oo fiican wuxuu ugu yidhi haddaa caddaysa dhiba kuu yeelaysaa iska dayso ilaahay subxana taala wuxuu qadaray markaan bilaabay inaan waxyaabihii ugu horreeyay aan dareemo ee tahay maalmaha ka dambaysa ee sii caddaanayso iligayga damage gaaray okay so tan waa tanaa haddaan dib ugu noqdo fluoride-ka waxyaabaha dhibaatooyinka leedahay maxaa ka mid ah waxaa la sameeyey research ama baaritaan jaamacadda la dhaho Harvard University waxay soo saartay haweenka markay uurka leeyihiin ama ciyaalkooda markay yar yihiin ugu cadaya daawada cadayga ku jirta fluoride-ka ama iyaga isticmaala markay uurka leeyihiin ilmahaas inuu caqligooda ka hooseeyo ilmihii kale subxaan allah so aad iyo aad muhiim u tahay companigeena haddaa fiiris waxyaabaha la iibiyo number one ay ku jirtaa daawadeena cadayga waxaasna maxaa waaye qof kastoo bilaadan markuu soo kaco waxa ugu horeeyo sameeyo maxaa waaye wuu cadaysadaa right waa number one so waa taasa again haddaadan haysan qofkii kuu soo diray videogan waxaa leedahay fadlan iga dabageeya daawada cadayga okay maxay kale oo ka mid ah safe home revolutionkeena waxaa ka mid ah microsilver spray okay microsilver spray ka mid ah spraygan runtii wax hadda dhow soo baxay halkaanana ku fadhiya inuu noqon doono number one waxyaabaha aynu iibino waxaasna maxaa waaye adduunka saa aragteen maanta horta kalarkiisa mu jeedaan yuu la mid yahay right kalarkii microsilverki mu jeedaa okay uu la mid yahay so dabcan asagana waxaa ku jira microsilverki laynayay bacteriyada waxaa loo soo saaray bahalkan waxaa la sameeyey baaritaan horta wax allaale waxa anaga companigeena soo saaro kulligood baaritaanay soo mareen waa company 15 sano soo jiray so dabcan Canadana waxyaabaha ay soo saarto adduunka waxay Canada soo saarto especially wasaaradda caafimaadka Canada oo goojadan soo xaqiijisay Health Canada website-keena haddaa gashid aad iyo aad u adagtahay deelkuma soo saaraan so wadamada badankood markay maqlaan waxaan Canada soo ansixisay dowladda Canada isla markii hore ka qaataan because waa dowlad aad iyo aad loo aaminsan yahay okay bahashan marka waxaa lagu sameeyey research baaritaan Germany waxa loo doortana wax kale ma aha markii la fiiriyo dadka raaca public transportation basaska iyo tareenada oo wadamada ugu badan tahay okay wadankaas waxaa la baarayay 2 asbuuc meeshii lagu shubo baskaasaad arkaysaan maantoo dhan la sii galaayo waxaa la ogaaday in ay bacteria is arkeenin muddo ugu yaraan 1 asbuuc so maxaa see adiga marka u isticmaalaysaa haddii aad bas raacdid meesha aad kursiga ku fariisanayso oo ku buufinaysaa because qofkaaga horeey ma taqaan haddaad taagan tahay birta aad qabsanayso waa ku buufinaysaa maxaa kale gaarigaaga markaas soo furaysid asagana wuu u baahan yahay waa ku buufinaysaa aniga shakhsiyan maxaa kaloo isticmaalaa qasama inaa u isticmaashid gacmahayga waxa kale oo dhahaan hand sanitizer-ka oo ka buuxda alcoholka ma jecli laakiin taas anay choice ii tahay annaga ma dhahayno bahashan waa hand sanitizer taas waxaa rabaa inaan idinka hubiyo okay so saasan waa dhahaa aniga horta marka ugu horeysa loo isticmaalo saanaa dhehaysaa okay waa ruxaysaa markaa ruxdid waa kaasaa saasa aniga u isticmaalaa okay saan idiin sheegay waa choice-kaaga haddaa rabtid saasaa dhahaa saa aniga iyo bacteria isku arag okay maxaa kale oo number 1 u tahay waxa loo soo saaray loo isticmaalo halkan maxaa uga jeedaan mask right sanka lagu duubto bahalkan adduunka dhan hadeertaan waxa laga dhigay mandatory waa khasab meel lama geli karto af ku duubneen haye maanta oo dhan markuu afka ku duuban yahay maxaa dhacayo in allaale inti bacteriadaadi dhan aad dib kugu noqonayso neeftaadi aad dib kugu noqonayso so taas kaliya xataa baa ka qaadi kartaa dhibaato so anaga maxaa soo saarnay bahashan sidii airkaas clean kugu noqoto so saana u furaysaa maskaagi horta maskeen u jeedaan waxa ku qoran fairy fashionkeena waa idin soo wadaa fashionkeena ka mid tahay fairy okay wala cad fashionkeena qaaliga saana u furaysaa gudaha uga buufinaysaa okay 3 jeer amal korkana uga buufinaysaa okay yahay waa isku taagaysaa hadhowta adoo dhan fresh iska tahay okay wax wasakh iyo hebelo ma lahayd baalkan arkaysaan aniga waxa haystaa ilaa goorta soo baxay October waa dhaqaa maalin kasta fiiri juuq iyo jaaq ma dhahay waxaas waxa waa quality alaabteena okay so intaas waxa ku soo gabagabeeyay safe home revolution maxaa kale uu companigeena sameeyaa oo runtii markii la aas-aasay 2005 ilaa 2017 kaliya uu sameyn jiray
fashion-kii oona kala dhicin rag iyo dumarba leh fashion-keena marka laba u kala baxaa mid waxaa la dhahaa posh maxaa waaye waa waxa maalin kasta la xirta everyday wear qiimihiisa maxaa waaye $20 Canadian ilaa $300 Canadian marka qaarkood hadda waxaa arkaysa ayaan dhaweyd website-ka galaya faraanti $10 la gadaayo okay oo haddana quality-gi sareeya waxaanaan qabo oo dhan aan tusinayay waxay yihiin posh okay alaabtana aan tusinay hadaayeeto dhowr alaaba halka idin soo qaada dabcan alaabtu way badan yihiin walacaada free ku helnaa laakiin dhowr xaba aan tusinay saacadana u jeedaan waa posh okay waa 100 iyo xoogaa maxaa kale siladana u jeedaan okay waa posh tusbaxna korka uga eg okay maxaa kale oo posh ka mid ah again okay jijimahan dhowr xabaan soo agdhigay inta ugu jeclahay markasta xirto ayadana waa posh okay website-ka hadaa gasho qofka cajaladan kula wadaagay aa arki kartid price-kooda okay silsiladan ayadana aad iyo aad caan u ah aad loo jecel yahay okay waxa ku jeclaa silsiladaheena hadaa xijaab xirata xataa korka ka dul xiranay waa la arkaya right meelaha kala waagoor maxay dhibi jiray silsilada quruxsan laakiin gaaban xijaabkayga laga dhex arkeen ciila ay qaban jiray okay midana waa tana maxaa kale midana waa midaha lagu jecel yahay ka mid tahay maasha Allah okay waxaan dhan waxaynu ku guda jirnaa poshkeeni ahaa $20 Canadian ilaa iyo $300 Canadian oo runtii qof kasta jeebkiisa iyo dooqiisa uu ciyaarayo maxaa kaloo halkaan idin hayaa sadiyaashan ugu jeclahay okay intiina cagaarka jecel waxaa li nabigeena calayhi salaatu wasalaam kalarka cagaarku aad u jeclaa subxaan allah soo waa taasaa siladaasna iyo jijimaheeda ayadana aad iyo aad loo jecel yahay okay waa top seller waxyaabaha dadka badankooda iga iibsadaan intaas waxaan ooga baxayaa fashion-keena ahaa posh everyday wear waxa maalin kasta la xirto market-keena kale maxaa waaye fairy waa wixii haddartaan aynu tusinayay maskeen laga sameeyey fairy waxa waaye luxury line-keena waxa waaye 100% leather waa wax haba yaraatee aanan isbedelaynin haddaa fiirisidna dadka qaadgata yaa ka mid ah dadka ugu caansan adduunka yes milyaneerada dadkaas milyaneerada markay dukaan aad leedahay adiga ka iibsanayaan koo maxay kuu tahay confidence-ga ku dhisaysaa right in waxani wax la huba yahay labo maxay ku tusinaysaa quality-geena inay aad iyo aad u sareeyo okay halkaan maxaa ugu horeeya saacadan okay saacadan u jeedaan waa $2,000 waa time piece-keena wiil waxaan aqaanaa 13 sano haystay saana weli u egta okay saacadan oo kale waxyaabaha aan ku helay free ka mid tahay $2,000 oo saacad oo free ah helay subxaan allah okay taasi waa taasa maxaa kale mid kale halkaan taala ayadana time piece-keena ka mid ah waxa jecelahay alaabteena company-geena uu ku soo xiro fiir in expensive taas garanaysa si qurux u tahay maasha allah okay midana waa tan maasha allah sida loo jecel yahay ayadana waxay ka mid tahay time piece-ka waxyaabahan weligood juuq iyo jaaq dheheenin imise ku fadhida ma taqaanaa saacadan $3,000 oo aniga hal sensi aana ka bixin subxaan allah okay taasna waa taas dabcan adigana maanta laga bilaabo insha Allah markaa ka hadlay hadhow sida loo soo galo laga bilaabo aa lagu siinayaa points ku gadanaysa insha Allah adigana for free maanta laga bilaabo okay maxaa kale waxaa ka mid ah fairy-geena oo halkaan iiga buuxo sidkana intu sinaya sidkan waa sadiyaashan ugu jeclahay dadka badankoodna ugu jecel yihiin okay boorsadan ama saana u qabsanee saana u qaadanee ama garabkaa suranee adeeg kugu xiran tahay okay maxaa hayaa markaan company-gan soo gala aniga aan qalbiga ku qabtay subxaan allah waxa qalbiga lagu qabtay yacni runtii waxay saldhig u yihiin wixii haddaa helaysa haddii ka qalbigan ku qabto waxaan dhahay insha allah maalina ku xaragoon doonaa okay kabahan ujeedaa fairy ku qoran tahay way isleeyihiin ayagoo gaabanna waa haystaa jecel intaa ka qabo midaan heelska lahaynna waan haystaa hadda maanta midaan unbaa intusinooyaa okay waa kaasaa hadda cabaaraa haysta dhowr jeeraa xirta juuq iyo jaaq ilaah hadday dhahayaan 100% waa leather waa kaasaa okay sadkan markii aan qiimeeyo waxay ku fadhiyaan adiga 2,500 haddaysan ka badnayn okay ay ku fadhiyaan saa idiin sheegan hal sense kama bixin
wixii aan ku haminaya markaa company soo galay inaan insha Allah maalmaha ka mid gato ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu qadaray 2 sano kadib inaan helo oo ku xaragoodo anigoo wala caada shilin ka bixin subhanallah okay maxaa kale oo halkan ii yaalo oo runtii mar kasta aan isticmaalaa oo hadduu qofkii yahay ganacsade saldhig u ah oo alaabtayda dhan aan ku gurtaa boorsadaydan okay business bagayga boorsadan saa u jeedaan 100% waa leather okay waa feeri halkaas oo qoran tahay 100% waa leather 2 sano hadda haystaa waa $500 hal sense kama bixin free aan ku soo qaatay okay marna isma bedelayso juuq iyo jaaq ma dhehayso okay so taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha fashionka aynu haysano maxaa kale halkan yaala boorsooyinka iyadana ugu jecelahay dadka badankoodna markasta iga jeclaadaan midana ayadoo waxaynu haynaa gaduud ayadoo jaallo ah iyo ayadoo madow ah okay waa taasa waa $700 Canadian hal sense kama bixin ayadana juuqi jaagna ma dhehayso waa 100% leather okay wala aada boorsadan waxaa la dhahaa handbag of the year 2016 waxaynu ka reynay Jennifer Lopez intiina taqaanaan oo ah gabar caan oo heesa ah filmaantana jisho ayadaa markaa soo saartay boorsooyin annagaa koob ka qaadnay okay so taasi intaas waxa uga baxaya alaabteena uu company-ga iibiyay hadda marka waxa laga yaabaa inaad dhehaysid wow company-gaas intaasoo alaab ah oo gurigayga iyo reerkayga iyo qoyskayga u fiican ah sababta tahay 2 goorba maalin kasta wax baynu iibinaa banaanka iibinaa intaasoo waxa haysto haddii anigana aan ka faa'iideysto oo fashionna marna ka xaragoodo marna caafimaadkayga iyo daryeelkayga quruxdeeda ka shaqeeyo haddana walaalo kale uga faa'iideeyo so intiina danaynaysa ganacsiga haddii aadan horey u soo qaadan buug iyo qalin soo agdhig wax allaale waxaan ka hadlayo su'aal kasta oo kugu soo dhacda insha Allah qofka video aan kula soo wadaagay ayaa u diraysaa so haddeertaan waxaan leeyahay screen share powerpoint-ga soo saaraya insha Allah saa si fiican u fahantaan dhanka ganacsiga sida waxaan loo ganacsado okay halkan waxa uga jeedaan company-geena wax yar idin dul maraya waa kana company-geena xafiiskan waa xafiiskeena xarunteena ugu weyn oo ku taalo Toronto okay Ottawa lagu aas-aasay Canada laakiin Toronto xarunteena ugu yaala alaabteena waa kaasa u jeedaan dhowr xabaalin ka tusaya bal fiiri waa alaabteena feeriga ah ee dadka lacagleeyda ku raaxaystaan ma sha Allah okay sidoo kale halkan maxaa ku qoran in haba yaraatee wax lagu leeyahay deen company-yaasha badankood markay galayaan deen bay qaataan weligan deen laguma qaadan waxa lagu aas-aasay lacagta ninka company-geena iska leh CEO-geena hadhowti kadibna wax dhaqaalaha soo gala ku filnaaday okay maxaa joognaa 200 oo wadan subhanallah okay halkaan waxay ka hadlaysaa sida dhaqaalaha looga sameeyo aan mar dhow ka hadli doono insha Allah biidnillaahi kariim halkaan ayaa uga jeedaan ninka company-geena iska leh oo dhaho Ramin Masgarlu waa qofka dhan oo aas-aasay okay halkaas uga jeedaan iyo in allaale inta guul uu soo hoysiiyay waxa waa isaga wuxuu ciyaari jiray lagdinta wuxuu raayay ninkan 112 bilad uu ku raayay Canada oo dhan uu ciyaari jiray lagdinta okay 25 sano uu jiray markuu millionaire noqday 5 company oo uu soo dhisay ilaa iyo hadhowta kiisa sameeyay yuu soo saaray 22 qof oo ah millionaire uu soo saaray halkaan maxaa ku qoran buug uu qoray oo la dhaho Forensic Networker oo markaa company ku soo gashid aadin bari doona insha Allah halkaana muxuu koob ku qaaday conversation sida dhaqaalaha loo sameeyo okay so halkaan waxyaabaha uu laga hadlay maxaa waaye uu noqday in lagu soo qaatay journalka la dhaho American Business Journal nin Canada joogo oo CEO lagu soo qaatay hab yaraatee ma jirto hal mar kaliya lagu soo qaaday 2 journal lagu soo qaatay nin company-geena iska leh okay hadday noqoto waxa la dhaho MLM-ka number 2 buu galay maxaa kaloo lagu wareystay Brian Tracy show Brian Tracy waxa waa nin oo sameeyo hadday noqoto dhiirigelinta oo caan ah okay lagu wareystay muxuu kaloo ku jiraa network marketing hall of fame ka dhan network marketing ka dhan ku jira halkaana muxuu ku guuleystay inuu noqday loo doortay inuu noqdo entrepreneur of the year okay ganacsaha ugu sanadka ugu fiicnaa halkan maxaa uga jeedaan halkan waxa waaye
guul aan soo haysiina sanadkii lasoo dhaafay oo runtii aniga iyo tiimkayga ay ka qaateen door aad iyo aad u weyn wala caada company-ga ninka iskale Ramin si toos oo cad ah iigu hambariyay aniga tiimkayga u dhahay haddayna adinka ahayn maynu gaari lahayn subxaanallah okay halkan maxaa waaye in company-geena loo doortay saa u jeedaan bishii 8 sanadkii lasoo dhaafay 2020kii in loo doortay number 1 inuu noqday wax allaale waxa network marketing company-yaashan badankeen waynu naqaanaa ama waynu maqalnay hadda company cusub aa soo bax alaab iibiyo kulli inuu koob ka qaaday okay maxaa kale nin company-geena iskale Ramin inuu noqday CEO-ga ugu fiican markay noqoto training inuu dadkiisa tababaro okay so intaas isku qarsan so maanta company-ga idin sharxeeno waxa waaye company-ga la isku raacay in uu yahay company-ga ugu fiican markay noqoto network marketing iyo ninka iskale inuu yahay ninka ugu training fiican so always waxa dhahaa aniga waxa you are with the best of the best okay loo wuxuu sareyso okay so hadda marka waxaynu u guda galeynaa dhankii ganacsiga alaabtii waa kana goojadii ugu horeysa idin sharxay waa taas oo eg tahay halkan maxaa kaga muuqdo NPN number waxa waaye natural product number oo Canada qofka markii uu joogo wasaaradda caafimaadka Canada ay bixiso okay wasaaradda caafimaadka Canada ay bixiso NPN numberka sidoo kale 100% exclusive rights ah haysanaa annaga qof aan ahayn kama heli kartid okay so halkan waxa ku qoran waxyaabaha ee faa'iidooyinka laga helo goojadeena haday noqoto ilowshihii haday noqoto difaaci inay ku dhisayso dad badan oo wadna xanuun qabay ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala wadna xanuunka oo gargaaray kansarkan ragga galo subhanallah xiidmaha waxa galo macaankii kor xanuunkii subhanallah waxa ku dari kartaa ay ku leeyihiin skin care kaaga dad badan kareemada markay marsanayaan way ku darsadaan waa lagu dari karaa maxaa kale u fiican yahay ciridka barara okay bararka gala maxaa kale deodorant ayaan dhaw aniga deodorant iga dhamaatay waa isticmaalay wallahi maalintii oo dhan fresh waa yaabay waxa loo isticmaalaa kilkilaha xataa urka xataa way baabiisaa okay maxaa kale wax allaale waxa raashiska nabraha xajiinta busbuska waxa soo dhan horka laga mariyaa yar iyo weyn kana maxaa waaye baabasiirka aad iyo aad ugu fiican tahay timaha cidiyaha ani waaga hore waa xasuustaa because ironkayga yara cidiyahayga way go'i jireen cidiyahayga way soo baxeen subhanallah okay kareemada haday ka hadleen waa ka saas oo ogyihiin okay daawada cadaga saas oo eg tahay shaambada waxa laga marka intu sinayna si fiican loo arkeenin shaambadan waa tii ragga ma sha Allah tii haweenka waa tana okay ma sha Allah spraygeena waa kana oo runtii aad iyo aad muhiim u ah okay halkan waxa ugu jeedaa inuu yahay 100% natural alcohol hab yaraatay inaysan ku jirin okay subhanallah ilaahay noo gargaaray vegan inay tahay nano free inay tahay wax kasta okay fashion keena waa kan fashion show waa la sameeyay hadda ka hor alaabtan ay qabaan dadkaas oo dhan waxyaabaha ku guuleysta company-geena maxaa kamid ah golden globe in bilad laga siiyo waa meesha dadka caanka ah ay filmaanta dhigaan lagu siiyo Toronto International Film Festival sanad walba la isugu imaado International Emmy Awards The View show soo gala Fox Merksta lagu soo qaato waxana waa biladaha xafiiskeena Toronto aadid in israacada ku dhacay inta bilad uu company-geena soo raayay okay halka maxaa uga jeedaa dadka isticmaalay iyo waxyaabihii ka dareemeen haweeneydan waxa lagu leeyahay markay kareemadana soo baxeen waxay diyaar u ahayd inay isqasho 3 bilood gudahood fiiri saanay ahayd say noqoto iyo say noqoto fiiri imagine maanta 4 sano kadib soo eg tahay subhanallah okay fiiri 9 cisho kadib timaha wiilasha walaalahay daawanayo timaha ragga fiiri 9 cisho kadib okay 30 cisho kaliya gudahood fiiri haweeneydan korkeeda soo ahaa daamankeeda si hadartaan yahay subhanallah 11 bilood haweeneydan fiiri oo miisaankeeda soo dhimay hal sano ka yar say ahayd iseen maanta tahay subhanallah fiiri halkan 7 cisho gudahood dadka xajiinta qaba fiiri qofkan saa u jeedaan waa qof weyn oo da' 7 cisho kaliya labadooda gacmood soo noqoto before iyo after halkan yaa uga jeedaan wajigeeda loo jeedan waa aniga waxa haysiinaya waxaan galay qofka kaliya oo Soomaali oo Muslim ah oo dadka waxa haysiiye kamid amaanta subhanallah halkan waxa haysiinooya boorsadeena oo Porsche lagu jecel yahay hadda way dhamaatay kalarkii madowga karada kala yaala aad iyo aad loo jecel yahay okay halkan waxa qabaa farantigeena asagana Porsche iyo saacada Porsche saacadan waa saacada ugu horeysan iibsaday marka company ku soo biiray 3 sano ka hor subhanallah okay halkan waxa uga jeedaan haweeneydan ayba cunay 2 bilood gudahood eyga cunay bal fiirisay noqotay dhakhtarkeedu wuu la yaabay subhanallah
waxaasna waxa waaye goojadeena wayna qaadanaysa afka korkana way marsanaysa okay dabcan waa la tolay laakiin tolitaankii siduu degdeg u noqday isla marka waa xasuustaa markay ku dhacda dhibkan dhowr asbuuc kadib 2 asbuuc kadib camal online soo fadhida waa garan weyne يعني قبل هراء أملينا ما كان سينوش شكت ترى هذا إيه بعناي دور أسبوع كهر سبحان الله هل كان ويل كان جردي زمر كسان دعوة رنتي مال بقى حنونته ويل يرى ولا يرى أمرك تضوي 8 سنة جري فواحد كل عي واحد دهان الله بيش عذر تذكرت ما حد أنك وضع ويل كان وارك صوردي سمركو فيديو يسك حد لايو مركو بنانك عادايو ماذا وحو كدو بنجري فلانها عادي مو سحرن جرين فلانada ilaa intaas soo asagoo dhan intaan un baa laga arki jiray waxaas waxa waaye wuxuu dareemi jiray yani embarrassment qof yar oo timahaysan sunihiisa xataa way dhamaadeen cudurka dartii fiiri suu ekaa maalintuu goojadeena bilaabay 2 bilood gudahood ilaahay subxaana wa tacaala muxuu qadara waa kan maanta waa yaabaysaa isma dhehaysid quruxda dhalinyarnimadii iyo quruxnimadii ilaahay marka hore siiye uu maanta haystaa halkaa marka waxaa ku qoran page la dhaho Fountain of Life official intaan hadda aynu soo sheegay waa in yara kumaanku qof oo ka hadlaysa soo qofkii cajaldan kula wadaago waxa leedahay page-kaas ugu dar asagoo Soomaalina waynu haysanaa la dhaho goojada Fountain of Life iyo faa'iidooyinkeeda halkaana waxa waa Safe Home Revolution alaabteeni kala oo dhan looga hadlaaya halkaana waxa waa company-geena Facebook-iisa Opulence Global gal adiga fiirso okay so hadda waxaynu guda galaynaa dhanka ganacsiga ما شاء الله أنت سو وناقة سو شيء تفرحي هدي أنا ربوا وحنا إن صاقلوا أما أنا كان جناح صدق صدق وفي عن هرت أنت جناح سجل لوجو دقلين صدق هذا النوع أو غيب قاعدين كرتمان تمحاوي كو إن نقطت مع ميشنا يس قفك مركون نقطة مع ميشنا وحو هلايا أنت سو هدية كو ما أنت قفك كو صدر ويب سايت كيس مركها قشيد أو ألعاب إبستيد وبغل دور ويرانه ما حاكو سيننا لبكون أو Opulence points okay marna waa idin sheegay points kaas waxa ku sameyn kartid maxaa kale $250 hadaa ku adeegatid waa hadii ugu badan $3 goojada Fountain of Life oo kale oo adigii qoyskaaga u iibso kale maxaa halkan kaaga soo baxaayo waxa lagu siinayaa 6,000 oo Opulence points sidoo kale $500 hadaa ku adeegatid waa $6 goojada Fountain of Life okay maxaa ku siinayna 15,000 oo Opulence points kan meeqay lacag ku yihiin maxaas lagu isticmaalaa labadan kun waxa waa $20 Canadian 60 kan waxa waa $60 Canadian kana waxa waa $150 maxaa ku isticmaalay fashion alaabta maanta qowma ka heshay hadartaana soo qaadanaysa adigoo xataa company ku jirin free u soo qaadanaysa waay wax baa naga iibsatay subhanallah su'aashu waxa waaye intaan marka waxa waaye waa points lagu siinaa marka ugu horeyso haddaan soo noqdo maxaa dhacaayo 3 bilood oo isku xigta marka iibsato ugu yaraan $75 waa $1 goojada Fountain of Life oo kale ama 2 xabo daawacday right hada iibsato 3 bilood oo isku xigta bisha afraad laga bilaabo wax allaale waxaad iibsanaysid waxa ku helaysaa 10% laga dhimaaya ma aha alaabta aad gadanaysa kaliya waxa doontid ka soo qaad maanta waxa ka haysa boorsay kabo 10% laga dhimaaya okay mid ugu dambaysa maxaa waay runtii aniga shakhsiyan aad u jeclahay waxaan haysanaa wax la dhaho referral bonus maxay tahay taas imise jeer isweydii aadaa maqaayad markii kuugu horeysay maqaayadii aad iyo aad uga soo heshay ama ha noqoto cuntadii ama ha noqoto dadka shaqaalaha ama ha noqoto quruxda iyo meesha muxuu dadka bini'aadanka sameeyaan walaacada Soomaaliyeed number 1 ku dhahay dadkan la wadaagnaa ha heblaayo shalay waxaan tagay halka meel isku dhacayso halkaanay ka shidan tahay right Snapchat meel kasta la soo dhigaa dadkii markaad u xayeysiisay marka ay tagaan meesha maqaayadaas muxuu ku siiyaa maqaayadaas waxna ma oogaba adiga inaad tahay qofka keenay qofka dadkii la wadaagay annaga laakiin markasta marka ka adeegatid website-keena waxa lagu siinayaa link adiga gooni ku ah linkigaas baad la wadaagaysa asxaabtaada markii asxaabtaada iibsadaan wax allaale waxay iibsadaan 10% adaa iskale jeebkaaga soo galaysaa subhanallah okay nooca labaad oo uga mid noqon karti maanta maxaa waaye inaad noqotid waxa la dhaho retailer midaan waxa waaye qofka rabo alaabtii intii in ka jaban inuu ku helo hadhowtina si iibiyo sidoo uga sameeyo dhaqaale yar taasna way ku furantahay so maxaa ku soo galaysaa haddaa Canada joogto waxa waaye $210 waxaana ku jira canshuurtii iyo delivery laakiin haddaa Canada ka baxsantaa waxa waaye $220 waxa bixinaysaa delivery baa lagu saaray canshuurtaadu way ku jirtaa already okay inta saabixisa maxaa lagu siin website kaas isla second ka soo gashid waxa la wadaagaysaa in allaale inta
aad kugu xiran markay galaan alaabta ay iibsadaan hadhowti waxaa leedahay faa'iidadii kombaniga u geenaya adiga hal shaqo kaama galaayo maxaa kaloo lagu soo raacinayaa 5 xabo oo sample ah daawadeena cadiga ah iyo 5 xabo oo sample ah ama test goojadeena fountain of life okay hal ama labo markaa qaadatid inta kale aad dad siisid dadkaas markay dhadhamiyaan alaabteena maadaama tayo leedahay markay dhadhamiyaan maxaa dhacayo way ku imaanayaan waxay ku leeyihiin waa rabnaa okay maxaa kale halkan waxaa la socda buugaagtan buugan ugu horeeya waxa waaye fashionkeena waxa in tusinaya oo dhan ilaa 22,000 oo alaab oo fashion ah haysanaa ama ha noqoto Posh ama Fairy buugaasoo free ah lagu siinaya oo meelaha aad dhigi kartid saloonada iyo meelaha la isugu taga maqaayadaha iyo dadka ay fariistaan okay halkaana maxaa ku qoran waxa waaye buuga ka hadlaya goojadeena fountain of life kan waa kareemadii waxa kaloo lagu soo raacinaa mid daawada cadiga alaabteena ay gadno oo dhan okay all right maanta laga bilaabo maxaa ku adeeganaysaa 20% discount okay dadka banaanka jooga waxay bixinayaan sidoo kale 3 bilood oo isku xigta markaa ku adeegato u yaraan 150 maxay goysaa xabad daawo cadi xabad goojada fountain of life waa adiga yani naftaada markaa u iibsatay bil walba bisha afaraad laga bilaabo discountigaagii 20ka wuxuu isku bedelayaa 30% okay maxaa kaloo lagu siinayaa 10,000 oo Opulence points ah 10kaas kun maxay u dhigantaa waa $100 Canadian maxaa ku gadanay fashion maanta laga bilaabo waa xaragoonaysa tan waxa waaye nooca looga mid noqdo shirkadda okay laba nooc oo kala jirtaan oo dadka badankooda u badan yihiin okay nooca waxa waaye koowaad waa mid ay dhahaan sa ujeeda halkaas promoter okay aniga shakhsiyan waxaan dhahaa ku meel gaar hadhowtaan idin sheegaa waxa uu dhaho ku meel gaar halkan maxaa ku soo galaysaa $600 Canadian waxa ku jira shippingki iyo canshuurti intaana bixinay intaana laakiin lagu siinaa inta bixisa ka badan see ku dhacdo ko waxa lagu siinaa website-ka maxaa ku jiro in allaale inta alaaba ay tusinayaan shaqadaada maxaa waaye dadkii la wadaagi dadkii way geenayaan way galayaan way iibsanayaan company-ga u geenaya adiga faa'iido leedahay shaqadaada oo dhan maxaa waaye dadku in la wadaag maxaa kale shaambadii haweenka iyo doobi shaambadii ragga iyo doobi shaambadii xabad daawo caday ah goojadii 2 xabo iyo 2 oo sprayga maxaa kale $62 oo shopping credit ah iyo wala caada $100 oo shopping credit ah inta marka isku dartid waxaad arkaysaa lacagta aad bixisa iyo ka badan inay soo noqotay soo shilinka ma galin ganacsaana ku furan subhanallah maxaa kale 5 xabo oo ah sample ah ama test daawada cadiga iyo 5 xabo oo goojadeena fountain of life oo sample ayadana dadka marka la wadaagtid halka maxaa kaaga soo baxay 10 macaamiil ah waay dadka badankood sa idin sheegay alaabteena markay dhadhamiyaan waa itus itaabsi ay dhadhamiyaan ayagoo ordaya ku imaanayaan okay halkaana saa ujeedid buwaagtii ageel lagu siinayo maxaa kaloo ku raacsan 30,000 oo Opulence points 30,000 maxaa u dhigmaan $300 Canadian oo maanta laga bilaabo faashka qawma ka heshay free ku soo qaadanaysa okay all right maxaa maanta laga bilaabo ku adeeganay 25% discount okay sidoo kale 3 bilood oo isku xigta markaa ku adeegato u yaraan 150 discountigaaga 25 aha bisha afraad laga bilaabo muxuu isku bedeli 35% okay hadda dib in kugu yara noqdo waxaan u bixiyo ku meel gaar package-kan dhexe maxaa waaye package-ka ugu dambeeya aan soo wado waxa waaye lifestyle advisor waa midka idin dhahayay teamkayga 90% way joogaan waxay u joogaanna waa tana waxay u joogaan waxa waaye qofka bini'aadanka markuu yahay midkii ugu hooseeyay 200 ahaa midkii 600 ahaa ama kan dadka waa isku shaqo laakiin waa la kala faa'iido badan yahay ka soo qaad maanta waxa tahay shaqaale qofka asxaabta tihiin shaqada waxa laga yaabaa subax isku marna soo gashaan isku shaqo qabataan habeenkii isku mar hooyataan haddii qofkaas hadhowto uu jeegi markuu idin soo dhaco jeegiisa ka sareey maxaa dareemi it's not fair alada xaq ma aha right why because qof isku shaqanahay isku waqti galino waa saas oo kale waxay dadka halkan u joogaan waxa waaye waa kan kugu faa'iido badan because shaqadii waa isla halkii okay all right midkan maxaa lagu soo galaa 1500 Canadian hadaa Canada joogtid hadaa Canada ka baxsanta waa 1800 Canadian ama 1400 US hadaa joogto Europe iyo waxasi adiga xisaabsanayo okay inta markaa bixisid gabigeed way soo noqonay see ku soo noqonay maxaa lagu soo dirayaa shaambada iyo doobi shaambada haweenka
shaambadii doobi shaambadii ragga 2 xabo daawo cadaygii kareemadii 3 xabo saddexda ugu muhiimsan kii waji lagu dhaqay kii maalintii iyo kii habeenkii 6 xabo goojada dadka badankood halba isticmaalaan inta ka hore ka iibiyaan iyo 6 xabo sprayga ahaa maxaa intaas ku raacsan $366 oo shopping credit oo waxa doontid ku gadanaysid okay maxaa kale oo ku raacsan 10 oo ah daawo cadayga oo sample ah iyo 10 goojada ama sharoobada fountain of life sample halka maxaa kaga soo baxay 20 macmiil just like that okay dadka ay ku wada dhijinaysa kulligood ay ku ordayay ku imaanayaan ama waad iibinaysaa dadka kala ah dad hadaa doontid $2 $5 waxa doonta ku gadaysaa ama dadka waxa ku siin free laakiin maxaa uga dhigaysaa ku adkeynaysaa inay isticmaalaan ilaa feedbackna kula soo wareegaan qofkii marka si dhab u isticmaalo hadhow asaaba ka dalbanayo okay maxaa kale 47,000 oo Opulence points waa $470 Canadian oo free fashion hadaa ka hesho boorsada intu sinay kabiya intu sinay silsiladihi saacadihi caawa free oo la hoyanaysa adigana subhanallah maxaa kale $400 oo shopping credit ah oo sida 360 kan waxa doonto gadanaysid halkaan 400 waxa guud looga dhigay waxa waa bonus maxaa bonus lagu bixiyay waxa hela kaliya qofkii ku bilaabo package kan haddii aad ku bilaawdo labada package oo kale waana ku bilaabi kartaa dabcan tanna waa imaan kartaa hadhowti intii ka dhineen lacagta unbaa buuxinay waa imaanay laakiin waxaad haysataa hal asbuuc sideena kaaga guban 400 haddii asbuuc kadib halkan imaatinta hoos ka soo kacday 400 oo kaaga gubanay waa waxa dadka badankood halkan ugu bilaabaan deeq iyo deemba ee tan toos u bilaabaan sababtoo waa kan kugu faa'iido badan laba goorna waa meesha u soo socotid okay all right maxaa kale maanta laga bilaabo discountigaaga maxaa waaye 30% okay halkaana waxaan ka iloobo website-kii waa isla halkii kulligood website haysataa oo maanta laga bilaabo dadka la wadaagaysid company-ga u geenaayo adigana faa'iido leedahay 30% ku adeeganay sidii oo kale 3 bilood oo isku xigta ugu yaraan markaa ku adeegato $150 discountigaaga 30 ahaa wuxuu isku bedelayaa bisha afraad laga bilaabo 40% hadaa wax yar idin dul istaago 150 kaas maxaana loo ku yiri ku adeegta waxaana loo ku yiri ku adeegta ka soo qaad maanta waxaad tahay ganacsade waxa furatay makhaayad bil walba inta aan la gaarin faa'iidadaada intee kharash ka bixayso koo waxa laga yaabaa inaad bixinayso kiradi labo dabcan alaabtii aad gadayso cuntada aad gadayso waa soo iibin saddex hadaa shaqaalihii mushaarkooda bixinaysaa afar haddii aad delivery samaysid alaabta geegeysid gaariga wuxuu kaaga baahan yahay insurance iyo gas guryaha aynu maanta degannahay badankeena maxaynu bixinaa kiro taleefanada aynu wadana maxaynu bixinaa biil adduunka oo dhan ku salaysan lama maqalo lama arag qof ku dhahaayo waxaan ahay ganacsade intaas oo faa'iido sameeya hab yaraatay kharash igala ma jirto ma dhicin soo dabcan ganacsigeena ganacsiyasha kale la mid yahay hadaa maanta dukaan furatid oo dhahda alaabna ma keenayo kiradana ma bixinayo korontadana ma bixinayo ma ganacsi ku jirtaa waa maya waa sidii oo kale 150 ka wala caada anaga ma aha xataa kharash waay alaabta aad ku gadanaysiya iska leh waa alaabta aad iibisid aad adiga isticmaashid maxaa idin sheegaan sheekadayda markay company-ga alaabta la ii keenay yuu waxa qofkii ugu horeeyo isticmaalay aniga hooyaday macaan see marka u gadaysaa adiga waxaadan isticmaalin soo dabcan bil walba waxa u baahan tahay inaad iibsad Soomaa adiga isku hormarisid Soomaalida xataa qofka kabaha ka talinaysid kabiisa la fiiriyaa marka hore Soomaa haye adiga hadaysa ka muuqan caafimaadkii iyo quruxdii iyo fashionkii see qof kale oo gaday soo ugu yaraan adaaba ku adeeganayo 150 kaas marka adigaysa ka badnay aniga family-geena waxa ku baxda bil walba $250 laba musqul noo taala daawada cadageen dhiganaa goojada 2 ilaa 3 aan ugu dhamaato shaambadu waa noo meel kareemadu waa noo meel sprayga hadda noo soo baxay waa meel soo 150 ka badan aan ku adeeganay imise jeer isweydii baa tagtaa dukaamada ama Walmart ama heblow kale intaasoo lacag soo bixisa okay soo laba goor 150 kaas way ka bixi lahayd ma ku iibsatid wax dabiici ah kana ganacsanaysa hadhowti waa faa'iidada waxa lagu dar subhanallah soo waa kaasa okay all right halka waxa uga baxaya package yaashi hadda waxaynu galeynaa sida dhaqaalaha looga sameeyo company-geena qofka meesha ugu sareysa marka uu gaaro wuxuu ka sameeyn karaa 60,000 asbuuci 60,000 asbuuci markii sanad loo qeybiyo halkaas maxaa kaaga soo baxayo 3 milyan iyo 120,000 inta wala caada waxaan ku jirin hadiyadaha
halkaa waxaa uga jeedaan private jet diyaarad gooni ku ah yes adiga tiimkaaga ku raaxaysanaysaan halkaa maxaa inkaga muuqdo markab gaariyaal la bixiyo intaasoo wax oo hadiyadu companiga bixiya jirto mar dhow ka hadli doonaa hadiyadahaasoo dhan markii laisku daro qofka wuxuu samayn karaa ilaa iyo 4 milyan sanadkii aniga waxaa jirta su'aalay markaas dadkii weydiiyaan ilaa iyo maalinta companigan bilaabay saan hadda ahay oo ugu qanacsanahay oo ugu faraxsanahay baa dadku ugu sharxi jiray anigoo intaasoo in la egoo been ku dareenin waxay dhahaan walaale markasta see ku dhacday intaasoo farxadii intaasoo energy kaa muuqato waxaa dhahay aniga subax kasta markaan soo kaco hal su'aala isweydiiyaa koo waxaan isxasuusiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nimcadu isiiyo ilaahay wuxuu isiiye fursad aan ka samayn kara ilaa iyo 4 milyan sanadkii insha allah waxaa isweydiiyaa walaale ilaahay fursaddaanuu ku siiye farax suudiye talow maanta ma u shaqaysanaysaa sidii intuu ilaahay kaaga talagalay aan ka samaysid 4 milyan mise meelaa seexanee waxaa sugaysaa qof kale inuu sameeyo because realityga maxaa waaye haddaanan aniga samaynayn yaa samaynayo hebel iyo heblaayo because laba goorba fursaddii waa loo sameyn yahay waa wax lagu soo hordhigay waa adiga iyo kartidaada dabcan subax kasta maxaa go'aansadaa inaan u shaqaysto inaan ka sameeyo intuu ilaahay iga talagalay insha allah okay so sida faa'iidada looga sameeyo companigeena waa ilaa iyo 12 nooca ugu horeeya maxaa waaye retail profit waxa waaye Soomaalida waxaynu dhahnaa tafaariiq waa shay kastaad iibisid oo faa'iideeda leedahay ka soo qaad waxa maanta iibisay waxaan tusaale u qaadanaynaa goojadeena Fountain of Life maadaama faa'iidada laga sameeyo ay tahay mid ugu fudud goojada ka soo qaad maanta waxaad iibisay 5 dhalo halkii dhalo waxaa saaran ugu yaraan $20 ama qofka markuu gacantayda saan ooga iibsado ama website-kayga ka iibsado okay 5 dhalaan iibiyey 5 dhalo 20 ku dhuf maxalka kaaga soo baxay $100 10 dhalaa iibisay maxalka kaaga soo baxay $200 100 dhalaa iibisay ka soo qaad waa tusaaladeeda ugu jeclahay bishaan ka soo qaad waxaan iibiyey 100 dhalo 100 kaas dhalo markii lagu dhufto 20 maxay ii soo baxay $2,000 oo cad cid u haysta aysan jirin sidoo kale 200 aan iibiyey 4,000 soo kani marka ma laha xad laguma dhahayo jooji inta aad doonta iibin kartaa dad badan taas kaliya ka dhargeen ganacsigeena alaabtii soo iibiyaan si iibiyaan okay nooca labaad maxaa waaye nooca labaad waxa waaye markii dad aad ganacsigaaga u soo bandhigtid okay dadka marka u soo bandhigaysid ama waxay noqon karaan dad macaamiishaad ah oo ku dhahay walaalay ama walaalo waxaan rabaa inaan ku helo intii in ka jaban adiga marka qofkaaga wana u danaysaa waxa leedahay marata inta ka jaban ku heshid ma igu soo biirtid oo maxay helaya waxaad helaysaa intii jabneeda aniga ku gadanay hadhowtina qof kale uga faa'iideeyay qofka hadduu maskaxdiisa isticmaalo muxuu leeyahay waxaan waa ogtahay wax tayo leh inaad u baahan tahay haddii intii aad haysatay ka yar ah ku gadatay intii ka jabneed dadka looga soo faa'iideysan maxaa waaye wax lagu daray soo qofkii wuxuu ku leeyahay waayahay waa soo galay soo ka soo qaad adiga waxaad tahay lifestyle advisor qofka ugu sareeyo package ugu sareeyo waxa keento qof package ugu hooseeya muxuu company ku siinayaa oo ku dhahayaa thank you $25 $25 qofka markii uu noqdo package ka hoose maxaa la socday inuu dhahnay 5 xabo daawacaday 5 xabo goojada oo sample ah soo maaha commission kooda $25 okay kus alaabo qofka gatay labo qofkii package ka dhexe ku soo galay $600 maxaa uu company ku siinayaa $100 ku dhahayo thank you qofkaana noo keentay ugu dambeyn qofka wuxuu dhahay adoo kala raba inaan noqdo anigana waxaan rabaa waxani faa'iidada ugu sareysan aan ka sameeyo lifestyle advisor ku soo galay maxaa helaysaa 10 cisho kadib account-kaaga markaa furtid $250 kugu soo dhacaysa okay intaan marka waxa waaye sida dhexe looga sameeyo example halkaan noo yaala maxaa waaye ka soo qaad bishaan waxaa keentay 4 qof xisaab male inta qof teamkeena samaysay 4 qof aa keentay 4 qof qofkii waxaynu dhahnay waxa uu ku saaran $250 soo ah markuu yahay lifestyle advisor halka maxaa kaaga soo baxay $1,000 cad yes waa sameyn kartaa waana la sameeyaa kan saddexaad maxaa waaye kan saddexaad runtii dad yar fahansan aniga shakhsiyan markaan ganacsiga soo galaayana wixii aad iyo aad ii soo jiitay ay tahay waay maadaama ay tahay waxa aniga aan bartay jaamacadda dhaqaalaha waxaan akhrin jiray dadka adduunka u dhaqaalo sareeya dadka adduunka u dhaqaalo sareeya waxay dhahaan top 2% boqolkiiba 2% adduunkan dan xukunta markay noqoto dhaqaalaha dadkaas marka aan tixraac sheekooyinkoodii waxaan ogaaday hal mid inay ka sameeyeen midaasna waxa waaye waxa la dhaho residual income dhaqaalaha dhaxalgalka ah dhaqaalaha dhaxalgalka ah waa wax haddii xataa adduunka maanta aad ka tagtid maadaama company-gan aad shirkad la tahay oo bil walba wax ku darsatid
aad faa'iidadii ciyaalkooda ay dhaxli karaan. Okay, suu u shaqeeya maxaa waaye qofkan maanta aad keentay uu companiga kaa siiyey $250 ku dhahaya thank you maadaamay tahay dilaalkaagii. qofkaan ma imaan lahayn haddaysan adiga ahayn soo maaha. dilaalkaagii $250 uu ahaa, lacagtaas waa one time bonus, hal maraa lagu siinaa. qofkaan maxay idinla tahay inuu samaynayo? waxbuu iibin, qof buu soo gelin. haye qofkuu soo geliyana muxuu samaynayaa? in allaale intii adiga aad samaysay qofba qofka kale wuxuu sameeyo sameeyo because qof kasta maxaa u cad 40 milyan. haye adiga marka maadaama aad tahay qofkan qofkii keenay, qofka waagi bariya iyo gobolkii dhac la shaqeynayo, ama trainingkiisa ha noqoto, ama alaabta sida loo sharxa ha noqoto, ama dad si loo register ha noqoto, waagi bariya gobolkii dhac shaqa ku jirtaan. qofkaas markii uu shaqeeyo, dadkii uu keenana ay shaqeeyaan, maxaad ku leedahay? wax allaale waxa ay sameeyaan in allaale inta kaa hooseysa 8% iyo bara lagu siinaya. halkaas dad badan markaysa fahansaneen network marketing su'aalay ka keenaan. su'aalahaasna wax kale ma ahe aniga markii aan tix raacay waxa waaye aqoon daro. qofka markuu waxa ka madow yahay wuu ka madow yahay. marka aqoontaas waxa waaye dadku waxay iska dhacsiinayaan haddii uu qofkii saas sameeyo dad hoostiisa yaalo wax uu ka helo waxay u maleeyaan qofkii oonan shaqeynin asagoo barkinta u dheer tahay in la siinaayo. dadkan waa dadkii aad la shaqeynaysay. hal qof ama tiimkaaga ahaado ama 1000 qof waagi bariya iyo gobolkii dhac shaqa ku jirtaan. dadkeena waxyaabaha kale aysan fahansaneen waxa waaye network marketing ma u maleeyaan inay tahay shaqo. maanta aniga haddii subax kasta aan u kalahayo office oo aan sameynayo waxa aan sameeyo, maanta dad train gareynayo, dad wax u sharxayo, dad wax la iibinayo, waxa dhihi lahaa gabadhaas xoogeeda shaqaysanaysa. laakiin maadaama aan gurigeyga joogo, computerkan aan haysto ama cellphone-kayga, dadka waxay la tahay lacag free inaad dalanooyo. wax free lama dhaho, ma jirto. walaacaadka waxaan kula talinaa anaga walaalay ama walaalow, haddii aadan shaqa diyaar u ahayn fadlan ha nagu soo biirin. because qofka markuu nagu soo biiro uusan farqaadin, asna wuu khasaare, annagana waa khasaarnay. dadka waxyaabayna weydiiyaan waxa waaye ganacsigeena khasaare ma leeyahay? yes. maxay tahay khasaare mataqaanaa? haddaadan afkaada kala furin. yes. ganacsigeena oo dhan wuxuu ku salaysan yahay dadka inaa gaarsiisay. kii qaatay iyo kii kale ilaahay subxaana wa tacaala u taala, shaqadaada ma aha, dadka unbaa gaarsiinaysaa wanaagii, horumarkii iyo caafimaadkii. okay, so midaan waa midaas oo ah 8.5% boqolkiiba 8 iyo bar inaa ku leedahay in allaale inta dad oo tiimkaaga ah in allaale intay shaqeynayaan. okay, midda afaraad maxaa waaye? waxaa la dhahaa personal team bonus. midaan waxaa rabaa intiina hadeertaan isdhehaysa alla waxaa rabaa packageka hoose ama kan dhexe inaa kusoo galo, ina idin qeexo muhiimadda ee leedahay packagekeena ugu sarreeya lifestyle advisor. okay, muhiimadda ee leedahay waa kanaa. kasoo qaad maanta aniga waxaa keena 10 qof. 10kaas waxay ku soo galeen retailer packageka ugu hooseysay 200. 200 qofka markuu ku soo galo discountigiisa muxuu ahaa 20. haye 10% ka maqan. 20kaas marka qof 10% ka maqan, kasoo qaad 10 qof aan keenay, markii la fiiriyo bishaan adeegooda la isku egeeyay waxay gaartay 5,000. 5,000 markii laga jaro 10% maxaa ku soo baxaayo? $500. lacagtaas waa lacagtii dadkan companiga uu ka reebay maadaama discountigooda uu yar yahay. companiga muxuu ku sameynaya idinla tahay 500? ma saa qaadanaya? may yuu siinaya aniga. why? dadkan anaa keenay, faa'iidadii uu companiga ugu talagalan way ka faa'iideysan waayeen soo maaha. so intuu asaga qaadan lahaa anuu ii soo celinaya. waa waxaan dadka markasta kula talino, packageka ugu sarreeya qaata, sidii linkaga reeban 10%. maxaa linkaga reebaya? middaana waa dadka ku haminaya inay kusoo galaan packageka dhexe. sidii oo kale kasoo qaad maanta waxaan keena 10 qof. 10kaas qof adeegooda markii laisku daray 5,000 uu gaaray. 5,000 waxaa laga goynayaa 5% because qofka markuu yahay packageka dhexe discountigiisa waa 25 keliya, meesha 30 heli kare. 5,000 markii laga gooyo 5% maxaa ku soo baxaya? $250. $250 again iyo companiga ma qaadanaya? may anuu isiinaya. okay, so tan waxay qeexaysaa muhiimadda ee leedahay inaad noqotid lifestyle advisor sidii aad u heshid faa'iidada ugu fiican. okay, midka shanaad maxay tahay? midaan waxaa la dhahaa MGRS. MGRS waxa waaye runtii mid aad iyo aad muhiim u ah oo saldhigna u ah ganacsigaaga. waxyaabihii aniga markaan ganacsiga soo galay lagula taliyey bil walba ha ka moogaanin. maxay tahay MGRS? MGRS waxa waaye in allaale inta faa'iido companigeena soo gasho sanad walba bil walba 200 oo wadan markay soo aruurto
waxaa lagaa siinayaa ama 1 share ama 2 share ama 3 share waxay ku xiran tahay levelkaaga soo caawa haddaad daawanaysid oo ku soo gashay lifestyle advisor haddaada lifestyle advisor ahayn package ugu sarreysay uma tartami kartid faa'iidadan again waa waxay muhiim u tahay inaad ku bilowdo lifestyle advisor haye caawa haddaad kusoo biirtid waxaa go'aansanaysaa insha allah biidnillaahi kariim bishaan inaysan ku dhaafin lifestyle advisor okay waxaan ka wadaa mgrs inaysan ku dhaafin okay midka lixaad maxaa waaye yaa jeclaan lahaa inuu ku xaragoodo gaari oo free ah oo shilin ka bixin qof kasta right bil walba waxaa samayn kartaa $500 Canadian ilaa iyo $4,000 bil walba dadka waxayna weydiiyaan ilaa intee bay soconay bonuskaas il allaale intii aad shaqaynaysid bil walba shaqada lagaaga baahnaa haddii aad samaysid waa helaysaa markaa company kusoo biirtid aad lagu barayaa waxa lagaaga baahan yahay saa u keentid dadkaanaad arkaysaan waa dadkii ku guulaystay gaariyaasha okay waana in yar inta guulaysanaysa waa yaabaysaa hadda 2 cisho ka hor waxa u duwaaldegaynay dadkii bishii lasoo dhaafay 20 qof aa keentay gaari free ah aniga ka mid ahay okay so midkaan yaa waaye waxaa la dhahaa Renelia waa youngest millionaire waa dadka millionaireyaasha companygeena ninka ugu yar ayaan dhaweyd 40 sano gaaray halkaas maxaa yaalo gaarigiisa waxaa waaye Tesla waa $200,000 subax kasta soo kacdid gurigaaga hortiisa waxaa yaalo $200,000 gaari ah aadan shilin ka bixin subxaanallah halkan yaa waaye haweeney iyo ninkeeda oo waa Philippine intiina taqaanaa Philippine wadamada waxa waaye dhaqaalahooda ugu hooseeyo ayagana way keeneen walaal ciyaal badan ay leeyihiin waxa waa Soomaali Philippine waa Soomaali oo kala ma sha Allah inoo badan ay leeyihiin ayagana way dadaaleen waa kaas gaarigooda free soo qaateen gabadhaani wiilkan waxay hortaagan yihiin xafiiskeena Toronto ayagana waa kaas gaarigooda soo qaateen haweeneydan ayadana waa kana Singapore ay joogtaa waa runtii dad qof aad iyo aad u fiican oo markaas ila taliso ayadana waa kaas gaarigeeda waa free odagaanay 70 sano uu sii cagacageenaya taasi waxay ku cadeynaysaa in ganacsigeena la kala lahayn yaa rag yaa dumar yaa yar yaa weyn waa qof ka sii daalkiis asagana waa kaas gaarigiis free ku soo tuuray okay ninkaana sidoo kale asagana Philippine uu jooga waa kaas gaarigiis ku soo tuuray okay all right nooca toddobaad waxa waaye luxury cruise yaa jeclaan lahaa markabkaas inuu raaco qof kasta right 2019 ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu qadaray inaan noqday qofkii Soomaali ugu horeysay oo raacday okay aniga dad intaasoo qof adduun weynaha raacday anaa Soomaali ka ahaa sanadkii la soo dhaafay 2020 maadaama uu cudurkan jiray lama aadin xisaab male inta qof teamkeena heerkii laga raba gaaray LD2 so again hadaa daawanaysid qofkii ku hula wadaaga ajarada marka soo gashay ganacsiga waxa leedahay LD2 soo ku gaara insha Allah suura saab badan gaar sidii markabka soo socda aad adigana nool raacday insha Allah okay waa xasuustaa marka raacnay waxaan ka bilaabnay Miami Florida Mareykanka magaalo ku taalo waxaan tagnay Bahamas waxaan tagnay Coco Cay qol kasta marka waxa yaalo 2 sariir anigu waxa la dajiyay gabar Rwandiisa gabadhii markaan wareystay waxay ii sheegtay inay tahay hooyo 4 ciyaal haysato waa xasuustaa English yar ay ku hadlaysay Faransiis iyo afkeeda hooyo taasi maxay cadeen u tahay companygeena inaan la kala jecleen yaa English ku hadlo yaa Canada ka imaaday yaa jaamacad ka soo baxay habeeraatay waa adiga iyo kartidaada halkan maxay kaga muuqda u jeedaan diyaarad ay ku jiraan dhowr qof teamkan waxa waaye teamka Nigeria 2 sano isku xigta Nigeria waxay ahayd number 1 companygeena Canada ka aasantay ay ka badiyeen ninkan dhex fadhiya oo shaatiga guduudka qabo waxa waa ninka companygeena iska leh oo Ramin CEO-geena waxyaabaha aniga isku dhiirigeliyay kamid tahay sawirka marka arko waxa dhaha wow teamkaas waa African ilaa ay Africa joogaan heerkaas ay gaareen in diyaarad private oo ayaga teamkooda lagu qaado haddii ayaga sameeyeen Allah hadna waa sameyn kartaa isdhaha subhanallah okay halkaana maxaa waaye waa vacation loo kaxay dadka LD3 iyo wixii ka sareeya oo hal asbuuc aad soo raaxaysanaysid ilaa ay haysatid waxay dhahaan butler waxa waaye dadka ku shaqeynaya batoon yar taabane qof ordaayo maxaa u baahan tahay waxaas nooc waxa iri waa jannadii adduunka miya subhanallah adduunka markaan yaraay loo sheegi jiray dadka jannada wax allaala waxay dalbadaan maskaxdooda ku soo dhacdaa loo keenaa waxa iri mati adduunka subhanallah hay halkaana maxaa waaye dadkii raacay markabkii dhowr sano ka hor okay halkaana maxaa waaye nooca 8aad oo aan dhaqaalaha u sameeyno haddayna waxaan ka hadlaayay fashion inaan ku helo free waa kana cadeynti
wax allaale waxa halkaas yaallo maanta laga bilaabo adigana waxaa ku heli kartaa free kabahana ujeedaan waa kabihii ragga oo feeri ah wala caada qaaliga ahaa luxury ookiyaalahan silsiladan alaabta halkan taalo badankood ani waan haystaa kabahan ayagoo cagaaraan haystaa subxaan allah boorsada waa tii aan haystay gaduudna waa haystaa guriga taallaa madowna waa tan aniga qabay markaan hadaayo waxay siinaayo okay pointskan waa kasta u helaysid okay so saa markaa usoo gashid aa ka bilaabaysaa ilaa iyo mar kasta aa shaqaysid waa helaysaa okay noocyyaasha kale oo aan dhaqaalaha u sameyno maxaa waa midkan waxaa la dhahaa fast start bonus qofka markuu soo galo isla markii darajo kala aado soo ka soo qaad maanta soo gashay waxaad ku gaartay LD1 lifestyle advisor darajada ku xigta waxa waa LD1 waxa ku gaartay 7 cisho gudahood waxa teamka laga sameeynaa haday dhahay 8% baraa ku leedahay 3 jibaarkeeda lagu siinayo haddii aad LD1 ku noqotay hal bil gudahoodana waxaasi waxa ku helaysaa 2 jibaarkeed okay halkan waxa waaye markaa sameeyay mentorship dadka la taliye aan noqotid shoppingki free aha again iyo heer waxa gaari kartaa company-ga dhan aa share ku leedahay aa ka sameyn kartid okay ugu dambeyn su'aasha waxa waaye ganacsigan sidee loo soo bandhigaa runtii ganacsigan aad u fudud yahay markii la fiiriyo faa'iidadiisa iyo suu u fudud yahay waxa waaye Soomaali waxa tiraahdaa waa kaafi kala dheeri subxaanallah qof kasta meel kasta dunida ka joogo han noqdo waxbarashadiisa ama cilmigiisa meel kasta abayroodo cilmi oo kamid ah teamkeena liidarayaasheena markasta waxay tiraahdaa hadalay tiraahdaa jecla waxay ku leedahay qofka hadduu haysto PhD sayni ognahay PhD maxaa waaye cilmiga jaamacadda meesha ugu sarreysa uu qofka professor yahay ama haddii uu yaqaano kaliya magaciisa sida loo qoro ganacsigan waa lagu talagalay saxiix xisaab male inta qof oo ganacsigan ku jirto weligood computer taaban English akhrin haddana maanta aniga iga firfircoon because maxaa waaye ganacsi wixii dhan waxa waaye dadka un la wadaag dadka un baa la wadaagaysaa natiijada ilaahay subxaanahu wa tacaala gacanta ku jirtaa soo nooca ugu horeysa dadka wax oo la wadaagaysa maxaa waaye YouTube haddaa gasho YouTube-keena oo taabatid qortid Opulence Global Company-geena waxaa kuu soo baxaayo intaas oo ah videoyaal oo ka hadlaya alaabteena anigana maxaa haystaa page-kayga YouTube ifraax essentials da tagtid Soomaali afkeena hooyo iyadoo ah soo labadii waa haystaa dadka un baa la wadaagaysa u dirdiraysa shaqadana waa lagu qabtay daawaa leedahay cajiladan iisoo sheeg wixii kaaga baxa haye maxaa kale midani online presentation waa waxa hadda idiin sameeyo kale dadkii inaad kula wadaagaysid online-ki presentationkaana markaa soo gasho company-ga wuxuu ku jirtaa website-kaaga ma aha waxani gooni ah ugu dambeyn waxay dhahaan placematkan midaan runtii waa midda aniga 90% aan ganacsiga ku dhisay waa midani qaarkii hadii daawanaysa waxa laga yaabaa hadda ka horna daawateen cajiladan duubay sanad ka hor waxaladana isticmaalay okay halkaan maxay ku tusinaysaa fashion-keeni rag iyo dumarba ahaa posh iyo feeri ahaa halkaana maxaa yaalo alaabteena wala caado waxa ka maqan shaambadii haweenka iyo kii sprayga ka maqan okay alaabteena qofka markuu kan haysto wax kale uma baahna computer uma baahnid PowerPoint uma baahnid hebelow kalena because wixii qofku arkaya alaabtan mujeeda anaa iibiya okay midana waxa waaye ganacsiga hadda ganacsiga aniga PowerPoint ka sharxay ma aha qasab inaan ka sharxid kuwana isticmaali kartaa waa kana ganacsiga sida loo ganacsado sida dhaqaalaha looga sameeyo wax kasta waa kaasa okay so taasna waa taasa so intaas waxaynu ku soo gabagabaynaynaa ganacsigeena iyo alaabteeni waxaynu iibinaa maxaan inkaga tagayaa maanta insha Allah waxaan inkaga tagayaa halka waxa ku qoran timing is everything waqtiga waa wax kasta adduunka oo dhan maanta waxa la isku dhaafay waa waqtiga Soomaali waxay tiraahdaa talada waa maalin aad garan weydo iyo maalin aad gaari weydo maanta videogan qof walaalaha kula soo wadaaga wuxuu kula soo wadaaga wax kale ma aha naftiisa wuxuu la jeclaaday wadan kula jeclaado waana tii nala faray hadaynu nahay islaan saasoo ay tahay qofba qof inta uu talaabadiisa ka soo horeeyo wuu ka faa'iido badan yahay waagi bariya iyo gobolkii dhaca dad baynu u sharxaynaa ganacsiga maanta waxaad u yeelatay fursad inaad noqoto dadkii maanta loo sharxay sababta ajiradan baa daawanaysaa haye marka haddii maanta markii aad fiirsatid aad ku qanacdid waxaad la xiriiraysaa qofkii kuu soo diray qofkii marka la xiriirtid uu ku registereeyo maadaama qofkan uusan meel fariisanayn waagi bari gobolkii dhaca dad la wadaagay sidaadoo kale markay dad tiimka ku soo biiraan
maxaad fursad u lahaanaysaa dadkaas qaar ka mid ah in gadaashaada la dhigo waana dadkii hadhowti tiimkaaga markay noqdaan ee faa'iidadii kombaniga ee badato ee shaqadii badato aad adigiina ka helaysid faa'iidadaadii okay weligeed fursadda waxaa waa sida loo soo kala horeeyo Soomaali waxaa maqli jiray ayagoo dhahaan haa tuuladaas ka awoowa ugu horreeyay qofkii ugu horreeyay makhaayad ka dhisay maanta waa dadka ugu taajirsan waay suuqa ugu soo horreeyeen soo suuqa yaa lagaaga hormarin siiba xaaladda maanta adduunku taagan yahay cudurkan coronavirus oo adduunkii maanta kala xiray runtii waxa kaliya looga samata baxay maxay noqotay online-kaas hadday noqoto cuntadii waa laga order gareen dharkii waa laga order gareen alaabtii kale waa laga order gareen anigaan idinla hadlaayo markii aan ka firaaqoobay inaan u shaqeeyo qof anigoo wala caado shaqo permanent oo dowladda haystay ka firaaqoobo waxay ahayd cudurkan gudihiisa see ku dhacday dadka markii dhaqaalihii dhulka uu galay kombanigeena number 1 uu noqday cudurkaanuu jiro maxay ku dhacday online-ka inay noqoto waxa kaliya Soomaali waxay tiraahdaa biyo waxay isugu tagaan god waa meeshii la isugu tagaay soo maanta booskaaga qabsa insha Allah istiqaaraysa sideedoo kale Ilaahay subxaanahu wa ta'ala talada u dhiib isku soo tuur soona dhawo insha Allah waan rajeynayaa hal inaan idin soo dhaweyn doono aad baan soo salaamay waxaan kaga tagay wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh